السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا يوتيوب channel كينا وليبا موقال عصب. فضلا هذا نقو عصب تهي هنجاه المامن إن نقو صبرتو مهسند muuqaal keenan waxaa ku eegi doonaa faa'iidooyinka laga helo in goor hore la seexdo iyo weliba si ay u saameyn doonto noloshaada. Oraha Ingiriishiga ayaa tidhaahda early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. goor hore la seexdaa, goor hore la kacaanaa waxay qofka ka dhigtaa mid caafimaad qaba, qaniya iyo weliba mid maskax badan. Hurdadu waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee qofka bini'aadamka haysto oon la soo gadan karin misna aan la soo iibsan karin. Ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa wuxuu ku yidhi wajacalnaa nawmakum subaata. ilaahay wuxuu aayadan inoogu sheegayaa in hurdada inooga dhigay raaxo. sidoo kale Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wahuwa alladii jacala lakum allayla libaasan wannawma subaatan wajacala annahaara nushuura. hurdadu waxay ka mid tahay naxariisada uu ilaahay subxaanahu wa tacaala ina siiyey si ay nafahenu u raaxaysato inoo ilowdo dhibaatooyinka maalinlaha ee bini'aadanku uu la kulmayo. hurdadu waxay ka mid tahay waxyaabaha markasta jirku u baahan yahay ee laga maarmi karayn. sidoo kale qofka bini'aadankii wuxuu hurdo u baahan yahay 7 saacadood ilaa 8 saacadood. sidoo kale waxaa lagu tilmaamay hurdadu inay tahay furaha quruxda. carabta ayaa tidhaahda annawmu miftaaxu jamaalik. jumladan waxayna tusinaysaa qofba qofku ka hor seexdo inuu ka caafimaad badan yahay jir ahaan iyo weliba maskax ahaan. sidaa awgeed waxaan eegi doonaa 6 qodob amba 6 faa'iido oo laga helo in goor hore la seexdo. faa'iidada koobaad amba qodobka koobaad waxay ka hortagtaa inay qofka ku dhacaan xanuunada loo yaqaano chronic diseases. waana xanuuno qofka si aayara ugu fida. astaamihiisa dhabta waxay soo baxaan sanad iyo wixii ka badan. daraaso la sameeyey ayaa sheegaysaa in cidda seexata wax ka yar 6 ilaa 7 saacadood ay sababi karaan xanuuno halis ah sida kansarka iyo macaanka. faa'iidada labaad caafimaad qabka wadnaha oo aad u fiicnaada. hurdada ah in goor hore la seexdaa waxay wadnaha ka dhigtaa mid caafimaad qaba, waxayna hoos u dhigtaa waxa loo yaqaano blood pressure amba daqdu dam amba waxa loo yaqaano dhiigkarka. dalka USA ayaa la sheegay in laga helay 75 milyan oo ruux oo dalkaas ku dhaqan wadna xanuun, taasay sababtay hurdada la seexan waayey waqtigii loogu talagalay. faa'iidada saddexaad waxay kor u qaadaa xasuustaada oo fiicnaata. The improvement of memory. tani aad ayay noogu badan tahay. dad badan waxay ka cawdaan inay xusuustoodu aanay aad u fiicnay, waxaana sababaya in goor hore la seexan waayo. hurdada loogu talagalay qof caafimaad qaba inuu seexdaa waa 7 ilaa 8 saacadood. waxayna naga caawinaysaa inaan xog cusub xifdino, wixii hore aan u haysanayna aynaan ilaabin. faa'iidada afraad waxay ka qayb qaadataa ayna kaantaroosha culayska jirka. control body weight. markasta uu jirku hurdo ku filan qaato waa markasta oo miisaanka jirku fiicnaanayo, yaraynayana khataraha xanuunada qaar sida macaanka ama diabetes. faa'iidada shanaad waxay ka hortagtaa inuu qofku ku dhaco isku buuqa ama stress amba waxaa loo yaqaano the mental diseases. tani waxay sheegaysaa markastuu qofku seexdo waqtigii amba xaddigii loogu talagalay waa markasta ay maskaxda caafimaadkeedu aad u fiicnaanayso kana yaraanayso isku buuqa. faa'iidada lixaad waxaa xoogaystaa habdhiska difaaca jirka amba the immune system. unugyada difaaca jirku waxay naga caawiyaan oo naga difaacaan xanuunada jirka ku soo socda. haddaba markastuu qofku uu hurdo ku filan seexdo waa markasta oo difaaca jirkiisu xoogaysanayo amba aad uu sareynayo. ugu dambeyntii hurdada waqtigeeda la seexdaa waxay kor u qaadaa caafimaadka jirkeenna iyo weliba maskaxdeenna, waxayna ka hortagtaa gabowga iyo weliba caafimaad darrada uu qofku la kulmi karo. haddaba goor hore seexo si caafimaadkaagu uu taam u noqdo. wassalaamu calaykum.